waqti gaarayo 4 saacadood dadka degan magaalada Gaza in iskaga baxa magaaladaasi ayna u sii dareeraan dhanka koonfurta macnaha ilaa iyo dhanka Sinai dalka Masar waraaqado ayaa dadkii loo soo daadiyay fariimo oo dadka farayso in isbadbaadiyaan qof allaala qofkii rab naftiisuna badbaadiyo darbigaasi u dhaxeeyo Yahuuda iyo Falastiinta yuusan aadin hana u dhaadhaco mise ha u dareero ha aado afkiis ha aadiyo ilaa iyo koonfurta ilaa iyo Sinai marka taas la yiri magaaladaas kaga baxa luuya hadda jeceshay naftaada Yahuudi Mareykanka Masar ay wixii ka codsadeen culeysna way saareen inay furaan xuduudda u dhaxaysa Masar iyo Falastiin albaaba xuduudaha wayna furtaa khaasan xuduudda wacdiirada Rafax waxayna yiraahdeen Falastiino waxa si aada ilaa Rafax waana tana warqada Yahuud hawada ka soo daadisay fariimaha Yahuudi u furtay Falastiinta waatana wax ku qoran wajida waxaan ku sabran Gaza marka waxaan raacsan laba falaar يعني halkaas u sii dhaadhac koonfurta macnaha si aad ilaa iyo Sinai si aad loo dadka marka waxa la yiri Sinai aadaysiin waa bixaysiin la yiri koonfurta aadaysiin waxa tagaysiin Sinai halkaas aad joogaysiin ilaa ay ka dhamaatay xabadda markay dhamaatana yani xabad joojin ay dhacdan ma aragtay oo qorshaha meesha laga leeyahay markii la fuliyana waa soo laabanaysiin waxa soo laabanaysiin magaalada Gaza Masarna waxa la yiri deewaana furta xuduudaha dadkan wayna u sameeyay waxa la yiraahdo gargaarka degdega markay imaadaan Sinai مصر وحيتري حتى أنا سلام مركز يهودي وين حدا وحيتر مصر ومحاولة جديدة مركز يهودي وحي كعصتي قرمها مدوبي مريكان كي كعصتين إنا السمية وحل يراهدو قحين السمية وحل يراهدو يقابلات قحوتي معناها دد كان مقالدو دقين أو حال ربا إلا قحيو أو أنا لقد قحوتي أو لو قد قحوتي ذلك مصر هل كاسا وحار ولا وصمي وحل يراهدو دب ودجين مركز مصر أرنتان ويكعج جدي جوابتي لو هنا إني بحسن ما يسمبحن تاسع مركز وحيك أنت يهود سل مركب من مصر صهر دكتو لو قضب لو سقضبو كلا إن مصر أي فضوضيسو حسوق مسجومات كمسة عربتيرك لو جسد ونور غزة فلسطين ضن هديسن عقلنا مصر وحالي يرهدي وإناد كأمستا أرالي كنقطة أقبشا حسوق إجومات كإيو عربتيرك لو جسد ون فلسطين هديك لو حالي يرهدي مصري وحالوت الماما يا إنها تهدد راد كلها مسة لو كلها دجالكي كسوق قادن حماس إسرائيل مركا وحنا لو أديكسدي قرمد مدوبة لو أديكسدي أيضا الله نجا عاوي مصر هلا صار يجرو عريس إبراشر هلا صاروا يعني عريس هلا تصيو سي أقبش أي أقلاته إنه فرط حدوده هذا إذا كان أنو قدام قحوتي للدجينا مثل الدجية مجال داسي سيناي بل مصر محسة ما يسوى هذا كان مركو سوير يهود كسوير إيو مريكان كمصر محسة ما يسوى مثلا مركب مصر وحي صوت قريسي صوت دشي عيدا مضيدا وحين الصوت تبتي صوت لوبتي waxay keentay macnaha xuduudda Masar iyo Falastiin u dhaxayso waxay halkaas keentay cuddo masuudaad military aad u tar badan military qalab military iyo ciidan military aad u tar badan halkaas keentay waxayna dhistay oo sameysay isla markiiba dhismo degdeg ah shub xuduud shubeeda sameysay u dhaxeeyo Rafax iyo Masar macnaha waxay ka wadaa ay tiraahday Xamaas marabto dadka inay soo qaxiso marka anaga Xamaas iskama dhicinoone xuduudaheen ay ilaashanoona marka in la soo galno xuduudeen anaga la'aanteen matqan ogolaashaheena anagoonan ogolaasna nalaga haysin xitaa ma ogolin marka waxay dhisatay darbiga dhistay waxayna sameysay xuduud oo shub ah macnaha abu Masartii hore maaha camal journalka magaciisa la yiraahdo New York Times wuxuu soo qaatay dhacdo hadda ka hor dhacday loo geesanay Fallujah wuxuu yiri meeshaan waxa la yiraahdo international law ma jiro marka arintaani ka socoto horaa loo geystay waxaana laga geystay magaca la yiraahdo Fallujah marka sidii looga aamusay aatana looga aamusaha marka sharci oo ku qabahay ma lahe soco waxa geeso xasuuq abu waliri waa loo fasaxay ninka waxaan qoran wuxuu ahaa askari ah kadaalika madaxweynaha hor dalka Mareykanka Bush asana wuxuu yiri maxaa dhacayday waxa dee dhacaan way dhici doonaan hadii dhacaan dee meesha dhacaan loogu tagi doonaa macnaha wal ilaawi doonaa dee si wada waxa marka waxaana yahuudin waxay sameynaysaa diyaarada u dirtay yahuudda deganeed ee wadamada Latin America iyo wadamada kale oo ka fog mashhad ay degan yihiin waxaana la sameeyay waxa la yiraahdo soo daad gureen macnaha soo daldal dadkeeda soo daldaloosa kuwii wadanka joogeen oo meesha matqaan ku dhaqana hadda ayada ay haystaan oo Falastiinta hadda matqaan ay joogaan yahuudda meesha ku dhaqan waxay sameeyeen waxa loo qaybinayo hub waxa loo qaybinayo qoryo iyo bastooladooyin loo qaybinayo waxaan u qaybahoyo dad madax sare ah oo ugu horeeyay ninka la yiraahdo Banqafiir arintan markuu waxay ugu yeereen
ay mataqaana ku tilmaamay inay tahay jihaad maraykanka xataa wuxuu fur waxa la yiraahdo jihaad marka maraykanka xataa meesha wuxuu geynayaa dad uu geynayaa marka Yurubtina soo dadaad gureynaysa ayagana soo meeshaas isku imaanayeen marka ayaga waxay furteen waxa la yiraahdo jihaad ay furteen in xataa waxa jira magaciisa la yiraahdo Michael Macfall wuxuu yiri culays hal saara Masar culays hal saara yiri wadamada khaliiska si culays u saaraan Masar si Masar oo ogolaado inuu furo xuduudihiisa dadkan oo meeshaas mataqaana joogo rafaxne loo dajiyo Sina haddii kale wuxuu yiri abu hal gumaado lah meeshan gumaado dadkan wuxuu dhahay in laga daahiriyaa waaye dhulkan oo lahay magaciisa Falastiin macnaha hadda yani ugu yeeroyn Israa'iil waxay dhaheen in laga daahiriyaa meeshan mataqaana laga saara abu hal ugu sameeyo dhahay waxa yiraahdo xasuuq abu way qiruhooyin ba ayaga saasoo kalena ciidamada militariga oo Yahuuda waxa la mataqaana lagu safalo geeyay taangiye badan waxa la geeyay xuduud u dhaxayso Yahuuda macnaha Falastiin iyo Lubnaan meesha la geeyay Falastiin iyo Lubnaan macnaha Yahuuda dhulka hadda ay haysato Falastiin iyo Lubnaan ayaa meeshaas la geeyay cudad aad u tar badan ay Yahuuda leedahay Hezbollah ayaa meeshaas mataqaana oo alo diyaar garoobaya dadkan waxay galeen diyaar garoowe galeen marka meeshan brother dagaalkan sida ayaga u sheegeen waa ninka la hayay Lindsey Graham oo senatorka Mareykanka weynaa abu siyaasiga weynaa hore u sheegay wuxuu yiri bahashan wuxuu dhahay waa dagaal diimeed marka Yurubtaan Mareykankii cudadooda iyo maraakiibtooda iyo guutooyinkooda askartooda way keeneen wayna ku dhawaaqeen waxay baashan ay ugu yeereen waxa yiraahdo jihaad ugu yeereen yani waxay dhaheen kaalaya arintu meel xun ay mareysay ay saas mataqaan ay sameeyeen way isku soo abaabulooyin way isku abuurayeen marka maxaa kale oo dhacay waa Iran maanta waxay sameysay marka ayadana waxay soo daad gurayso soo dadashay guutooyin badan iyo tiknikooyin badan iyo hub badan aad u tar badan ayaa Iran waxay soo dhigtay xuduudda Iran iyo Iraq tikniko iyo hub iyo ciidamo aan la xisaabi karin Iran maanta waa tan waxaanu tikniko waxaanu hub waxaanu ciidan waxaanu taangiye Iran waxay soo dhigtay xuduudda Iran iyo Iraq waxayna afka u saartay inay ku aadisay ka dhigtay bartilmaameedyo xariyaha military oo Mareykanka oo kuleeyahay Iraq iyo kuwa oo kuleeyahay Saudi Arabia marka Mareykanna maalmahan arintaas soo wajahday in oo la duqeey rabo xiriyihiisa military oo kuleeyahay wadamada khaliiska dagaalka marka uu sii weynaaday gacmaha ka sii bixi raba meel xunuuna maraya Falastiintan waxay sheegayeen inay soo rideen 7 diyaaradood oo MiG F-16 waana kana kii ugu dambeeyay oo dalabsino ma naqaano xaqiiqmi am suwabeen muswarun ilaa hadda ma taqaana lama hubo man la oga wixii tahay iyo sida u dhacay barkicintan masqixida lagu sameeyay shacabka Falastiin iyo dadka degan Gaza ayaa waxay tahay mid ka awood badan oo ka daran midii lagu sameeyay Falastiiniintii 1948 tan waxa lagu leeyahay qixitaankan masqixidan had dadkan oo la qixinooy wiligeed aleed adduunka lagu ma arag tan marka waxa in ka badan 1 milyan iyo 200 kun oo qof ayaa laga soo qixiyay daanta Gaza waxana loo qixinooyaa xoogna lagu wadaa inay tagaan ay u guuraan ee deegaan looga dhigo wadan cusub dalkaasi Masar magaalada Sinai tan waxa arinta hore soo dhacday 1948 Falastiin badan oo laga qixiyay wadankooda Falastiin oo loo qixiyay wadan badan oo Carab ah kamid sida Saudi Arabia iyo Urdun iyo waxa loo qixiyay wadamada kale khaliiska marka waxa lagu leeyahay Urduniin badan shacabka Urdun maanta waxay rabeen inay baxaan ee tagaan ilaa xuduudda ay rabeen inay socdaan ee mees mataqaan lagu wada ku tagaan balse waxa dhacday booliiska ayaa weerar ku soo qaaday marka booliiskii ayaa celiyay u diiday inay socoto mudaharaadooda marka booliiska iyo militariga Urdun soo baxay marka waxa lagu leeyahay wadamada khaliiska iyo wadamada mataqaan boqortooyada Carabta way burburi doonaan boqortooyadoodu way dhici doontaa wadanku ugu horeeyay boqortooyada la waayay doona oo dhici doonta boqortooyadu waa wadanka Urdun taasna waa sheeko dheer aad ka sheekay doona marka saas la soco